kani waa bilaal maxamed khaliif. bilaal da'diisu waa 7 jir, waxa uu muddo 7 sano ah sariirta la jiifaa xanuun. sidaad arkaysaan wiilkan yar waxa uu aad ugu bararsan yahay madaxa, kaas oo la sheegay in madaxa biyo kaga jira. xanuunkan haya dartiisa bilaal lug iyo gacan buu naafo ka noqday iminka. bilaal maxamed khaliif tan iyo markii uu xanuunkan ku bilowday waxaa gacanta ku hayay aabihiisa maxamed khaliif, maadaama ay kala tageen hooyadii dhashay bilaal isagoo xanuunsan. maxamed khaliif cali axmed oo ay ka muuqato murugo ayaa waxa uu sheegay in uusan weligiisa geynin wax cisbitaal ah wiilkiisa, maadaama uusan haynin wax uu cisbitaal ku geeyo. waxa uuna iiga warbixiyey xaaladaha kala duwan ee uu la soo maray wiilkiisa. anigoo ah maxamed khaliif cali axmed, wiilkaygana bilaal maxamed khaliif cali axmed waaye. wiilkan aa u jeediin 7 sano meel yaalaa. hooyadiisii anina waa kala tagnay, kabacdi ayay in muddo ii hayn jirtay, ayayna safar ay aaday. xaaladiisana la wareegay, hal maalin xataa isbitaal maana geenin, sababtoo ah wax macnaha qarash waxay caawiyo waa waaye. keligiis iyo aniga maayna cid kaloo noo maqan male. indhahan hadda u jeediin waxba kama arko, madaxaana biyaha ku jiro, lugii gacanna eber waaye. xaaladiisa u jeediin waa saan. isbitaalka haddii aan macnaha geen lahayn lacag iyo qarashna uma haayo. aabba bilaal maxamed khaliif cali axmed waxa uu dadka walaalaha muxsiniinta ah ka codsaday in wiilkiisa ay soo caawiyaan. fadlan waxaa codsanaa intii muslimiinta wiilkan xaaladiisa inay la tacaalaan, ay gurmadaan, wax igala qabtaan ilaahay dartiisa. xaaladeenna waa saan saa hadda noo jeediina naga dhabe. 1,000 shilin lacag uma haayo. 7 sano sariir yaalaa, sanadka 8aaduna galooyaa. xaaladiisna waa saan. eber 6 hal 5 4 4 65 69. ilaahay dartiisa ugu caawiya, waana xaaladeena saana naga dhabe. wabilaahi tawfiiq. fadlan caawi wiilkan yar adigoo kala xiriiraya lambarka aabihii oo shaashada idinkaga muuqda. mukhtaar cabdi aadan, raadiyaha iyo telefishinka SBC magaalada muqdisho.